waxaa la yiraahdaa aniga Shiina Axmed Subayr waxaanu ku noolahay tuulada aageeda la yiraahdo Libaaxo waxaanu nahay xoolo dhaqato siiba waxaanu dhaqanaa ariga hadir way u jeedaaniin boqolkiiba 80 ba ariga lumay 20 kalena waa joogan 20 kale oo joogan waxay ku joogaaniin wax la siiyo oo qutu daruuri oo iyaga la siiyo lagu nafaqeeyo kartoomo xaab adigu wax lagu nafaqeeyo intii kalena waa baxday haddii abaartaas xoolaha ka jirta geelu waa la mid abaarta xoolaha ka jidha mar haddii reer miyigu xooluhu ka abaarsadaan dadkuna waa abaarsadaa waayo waxay nafaqaysan jireen ama cuni jireen hadduu xumaado iyana waa xumaanayaan abaartaas marka xoolaha aad aragtaan oo idin muuqda dadka ka daran sababtoo ah ciyaaladii wax lagu nafaqeeyaa la waayay duqoshii wax lagu nafaqeeyaa la waayay dadkii kale wuxuu cuno waayay hadii waxaan leenahay abaar waa dhaaft macluul bay isu bedeshay maadaama xoolii baqtiyaan dadkuna waa baqtiyay maxaa ku xigay hadii xoolo baqtiyaan dadku waa baqtiyay male dawlad ka sareysa ma jidho maamul shaqeeyo oo xogogaali ma jiro awna la helaa ma jidho raxmadiina waa go'day hadda guga roob ma lahayn dayrtii dhaweydna roob ma lahayn guga ku xigana roob ma lahayn dayrtiina ma lahayn go afraad baa wax xoolahaas laqaan ugu dambeysay dadkuna wuxuu ka dhalameeyo go afraad baa ugu dambeysay sida laaligeed waxaan leeyahay marka nabadoonnada iyo odayaasha iyo dawladda iyo isimada maamulada jira ha kaceen awal waa seexdeen ma aanan arag degmo ilaa heer madaxweyne wax dhaqaaqa kama aanan arag iska daa wax kale oday tuuladu deegaanka aanu u nahay abaarta waa nala qabtaa sababtoo ah xoolo dhaqatayna lahay waxaanu ku noolahay bay ku noolaayeen wixiina waa wada macluuleen sida laaligeed abaar bay isu bedeshay xoolaha boqolkiiba 80 waa baxeen mar haddii xooluhu baxaanin dadkuna waa baxaya sida laaligeed waxaan leeyahay darteed waa horay waa u seexateen nimankiina maamulka ilaa ma heer nabadoon waa seexateen ilaa heer madaxweyne waxaan leenahay marka fadhiga laga kaco oo dhulka hal maro oo hal fiiriyo wacyiga jira tabartu intay tahay anigu waxaan leeyahay waa dardaaran مسؤوليتنا واقفتي شغلنا وكفرستين وأنا ليه سيدا لالي مرة براس أضي دعانين أننا مركب ماشى مامل كتيره أما البرلمان كتيره أما الدولة كتيره إن أنا ورنا حق بنقول أنا سببتها إيانا شعورت حقاقي دقالة قادم ميان أنا لا أدلكم بختي منه شد كالوفر السنة يا أنا وعليه هلكوا